qaar ka mid ah xildhibaanada ugu tunka weyn golaha deegaanka degmada Burco ee ka tirsan xisbiga muxaafidka ah ee Kulmiye ayaa si weyn u saluugay qaabka iyo qorshaha ay mas'uuliyiinta sare ee xisbiga Kulmiye u maamulayaan diyaar garowga ololaha doorashada madaxweynaha ee sanadkan dabayaaqadiisa la filayo inay ka dhacdo dalka. xildhibaanadani oo gaadhaya ilaa 6 xildhibaan oo xalay shir tiraayid ku qabtay magaalada Burco ayaa uga digay hoggaanka sare ee xisbiga Kulmiye inay ololaha kaambeynka doorashada ay u soo magacaabaan cid aan aqoon u lahayn una dhuundaloolin inay qanciyaan bulshada gobolka Togdheer. waxayna xildhibaanadani oo ku adkaysanaya in looga dambeeyo arrimaha u diyaar garowga ololaha xisbiga ee gobolka Togdheer ay mar kale uga digeen hoggaanka Kulmiye in haddii talada lala baalmaro uu xisbigu ku dhici doono hog aan ka soo noqosho lahayn maadaama ay sheegeen inay yihiin xildhibaanadii ugu codka badnaa gobolka Togdheer ee ka tirsanaa xisbiga Kulmiye waxaana hadalladoodii ka mid ahaa degmadan annaga ina doorteen annaga matala haday tahay horumarinta deegaamada la soo doortay iyo haday tahay dhinaca kasta kaar qaadashada iyo haday tahay ka warayntooda iyo xogta deegaanada la soo doortay meelaha maartay laga soo doortay waxaan moodaa in dad aan u helahayn oo aan magaalada xaafadeeda kala aqoon oo qaarkood hargeysa aan soo dhaafin inay ka talinayaan oo ay u kala dheereynayaan isku haystaan waxaan u aragnaa arrintaas waa arrin qaldan waa arrin aan runtii la qaadan karayn waa in arrimaha dib looga laabtaa waa in wax laga bedelaa waa in la wada shaqeeyaa haddii kale cidda hawshaa wadaa iyo cidda ay la wadaaba ma mahadin doonaan haddii talada la isku soo gaari waayo nin walba wuu tashanayaa anigu waxaan ahay xildhibaankii heer qaran iyo heer degmo ugu codka badnaa Somaliland waxaan leeyahay nimaan la soo dooran deegaankayga ka talin maayo waxaan leenahay hawsha waa inay ka waantoobaan oo cidda hawshan maadheed ku haysata ee og duuniyo ceel maqorba u bawr haysa cidda hawshan og ee dadkan gaari karta hadday jiraan min baadiye jiraan hadday min tuulo jiraan hadday min jiraan caasimada joogaan aan leeyahay u jeegaa Burco waa annaga waxaan leenahay maanta maaha inuu xisbiga inuu qiyaanayno maaha waa inuu si cad xisbiga hawshiisa dowlo si dhug loo galo hawsha waxaan leenahay ka fogaada laga suurtoodo xisbiga aan inta shacbiyadii in maanta uu dheerkiisa laga sheekeeyo Burco ay tuuxan lagu sameeyo form Burco ma istaasho ma geeyo anaga waxaan leenahay xisbiga annaga wakiil waa halka joogna annaga matala annaga codkiisii meeshii la garanayna kaarkiisii meeshii la geeyay annaga garanayna meeshii laga soo qaadanayna garanayna waxaan leenahay dadka faraaq la baxa war Burco maxaafad Hargeysa kamida bay noqotay war miyaanay caasimad ku xigeenkii ahayn war miyaan ahayn magaaladii laga doortay madaxweyne Axmed Silaayo war miyaan ahayn xilkeeda iyo waajibka ay ka sugayso madaxweyne Musabixi waxaanu leenahay haddii annaga waxna laga weydiin oo aan annaga nologa dambaynin inuu adhaxda iyo kubka ka jabi doono xisbigu waxaan arrintan aan shirkan jaraa'id u qabanay dareen noo muuqda cid gaarana ka yeeli mayno in ay soo xambaartaan iyagoo metelaya degmadii oo metelaya oo leh waxaanu nahay forum waxaanu leenahay bulshadii deegaanka annaga u joogna annaga u shaqeynayna annaga metela Xabiib Ciga Xasan Universal TV magaalada Burco.